السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت بدن كسو دوادا channel كينا فضلا هدي آنو عصب تهي ان سبسكرايب إنوده لايكت إي شيرتنا وحقينا أفضل هدا هرونو لجوكتي ان runtii aad bay u soo dhaweynayna asxaabteena nagu soo biirtay soo dhawaada gacmo furan asxaabtii hore noo la joogtana minkiina waaye maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala beetroot ama beetraafka qofba sidii u taqaano iyo faa'iidooyinka uu leeyahay hooyada uurka leh first hooyada uurka leh waxaa la soo gudboonaaday xilliga ay uurka leedahay calool fadhi sidoo kale waxa ku yaraata ironta sidoo kale wadna garaac ayaa ku soo kordhi kara sidoo kale waxa ku soo kordha eclampsia ama kalaamiso marka muxuu taraa beetraafka hooyada uurka leh marka horeeto beetraafka wuxuu ka saacidayaa hooyada uurka leh digestionka ama inuu dheefshiidka u fududeeyo si ay maxay tood caloosha ugu socoto sidoo kale waxa ku jirta beetraafka ama beetrootka folate folic acid ayaa ka buuxda sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa ama yareeyaa qatarta ka imaan karta maxay ahayd kalaamisada ama eclampsiyada ayuu hoos u dhigayaa Allah naguma keene sidoo kale wuxuu ka caawinayaa hooyada inay weight gain noqonin hooyada aad aynan u cayilin ayuu ka caawinayaa oo cayilkeeda dhexdhexaad u ahaado sidoo kale wuxuu ka caawinayaa healthiga ayuu ka caawinayaa ama caafimaadka wadnaha ayuu ka caawinayaa hooyada sidoo kale blood pressure-ka marka eclampsiyada ama kalaamisada waxaa sababadana blood pressure-ka ama dhiig oo kaca marka dhiigana hoos ayuu u dejinayaa oo balance ayuu ka dhigayaa sidoo kale waxaa ka buuxa beetraafka ama beetrootka calcium ayay hooyada ka helaysaa inta badan waa lagula taliyaa hooyada uurka leh inay qaadato waxyaabaha calciumka ay ka hesho waxaana kamid ah beetraafka ama beetrootka ama caanaha oo kaleeto sidoo kale waxaa ka buuxa beetraafka ama beetrootka iron ayaa ka buuxda inta badan hooyada uurka leh way u baahan tahay iron inkastoo hooyooyinka dhammaantood u baahan yihiin iron haddana hooyada uurka leh kuma sii jirta iron teeda mar walba hoos ayay u dhacaysaa marka beetrootka ama beetraafka wuxuu ka caawinayaa hooyada inaysan iron teeda ama dhiigeeda hoos u dhicin aad ayuu sare ugu qaadayaa wuuna maxay ahayd saacidayaa sidoo kale waxaa ku jira vitamin B6 vitamin B6 kana wuxuu u dejinayaa hooyada madaxa ayuu u dejinayaa vitamin B6 ka waxyaabo fara badan ayuu qabtaa waxaa kamid ah maskaxda shaqadeeda inuu balance asagana ka dhigo onan hooyada madax xanuun fara badan aynan isku arkin marka beetrootka ama beetraafka waa daawo waana wax walbo dhiigada kor ayuu soo qaadayaa insha Allah taala ku dadaala cunistiisa ama cabistiisa waxaad ka dhigan kartaa cabitaan ahaan ama waxaad ka dhigan kartaa qudaar ahaan fruit ahaan ayaad isticmaali kartaa oo waa jarjaranaysa ama cabitaan ahaan ayaad u cabaysaa sharaab ahaan soo dhawaada gabdho ka faa'iideysi wanaagsan